cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani wasiirka warfaafinta ah naafayeenka xukuumadda Soomaaliland oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlaya xarunta guud ee wasaaradda warfaafinta ay ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa dhaliilay iswan dusha u saaray xisbi mucaaradeedka wadani isagoo oo sheegay inuu dabada ka riixayo gudoomiyaha xisbigaasi mudaharaad lagaga soo horjeedo saldhigga military ee Imaaraadku ku yeelanayo magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri xisbiga wadani iyo musharaxa iyo taageerayaashiisa midna uma taalo in shuruucda dalkana jabiya umadana qasgaliya waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi Ciro inaan weerar ku qaadin saaxiibada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu ka farxin عدو الجمهورية السومالية. فحنا قدومي العراق وحنا لنا هدي عدنا نصدقك يدك يعني معارض نمد كل فوقان. تنمانتا عاد وضع وقرن دمس للحظة تغير ياش هذا وتشوشي إن لو وريره صاحب السوماليلاند يدك مع القشة كول. حسبك وداني قدومي عرة يتهاجر ياشيس تهاجر ياشوده وحاي كم مظاهرات يعني وودنك إماراتك عربتها سفاردي سكوتها الله دارك لندن وعندنا والبقوا عرفتين إعلامتها حاجة تهاجر ياشيس سوق لي وعلى مظاهرات يعني تدوينها رين حمر كاي لندن دقن ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inay ku mudaharaadaan safaaradda Imaaraadka Carabta ee London si loo joojiyo maalgashiga dekada Berbera iyo maalgashiga laga wado maxaan ku dhahdaaye saldhigga military inay weydiisteen marka waxaan leenahay arrintaas waa arrin dhamaatay waa arrin lagu kala calaf qaaday waxaan leenahay sidaan hore u sheegay ninka ay tahay inuu ka mas'uul yahay sharci dejinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gudoomiyaha ka ee loo igmiyay 12 sanadood gudoomiyaha ka ahaa ee lagu maamuusayo lagu ixtiraamayo xilka uu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u hayo waxaanu leenahay qodob dastuuri ah ayuu jibinayaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland weynay ka warhaysaa oo ay maxaan ku rahdaa ka tidhaahdaa ka noqoy isaga iyo saaxiibadiisba cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani wasiirka warfaafinta oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee waqtigan uu ku sugan yahay madaxweyne Silaanyo jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo markuu dalka ka dhoofay waxa uu idin sheegay inuu hawlo u gaara u tagayo dalka London iyo dibadda haatana waxa uu ku sugan yahay magaalada London caafimaadkiisuna aad iyo aad ayuu fiican yahay waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu inagu soo laabto isagoo caafimaad buuxa qaba عمري دارنا إلهي يا نبرة جدًا خضر كافي كلسن تي في هرقيسة